Warar kala duwan ayaa ka soo baxaya howlgal qorsheysan oo xalay ciidamada ammaanka ee dowladda Soomaaliya ay ka sameeyeen xaafado ka tirsan degmada Daynile ee gobolka Banaadir. Howlgalkan oo ahaa mid birtilmaameed ah ayaa waxaa lagu beegsaday guryo ku yaala gudaha degmada Daynile sida ay inoo xaqiijiyeen ilo wareedyo lagu kalsoon yahay. Wararka ayaa sheegaya in ciidamada ay guryaha ugu daateen ay kala soo baxeen ilaa dhowr qof kuwaas oo ay horey u soo kaxeeyeen si ay ugu sameeyaan baaritaano dheeraad ah. Sida ay ogaatay Sugoyira Media, ragga la soo qabtay ayaa lagu eedeeyay inay ku howlanayeen falal amni darro balse ilaa iyo hadda saraakiisha ma faahfaahin howlgalkaasi. Daynile ayaa ka mid ah degmooyin ay ka dhacaan falalka ammaan darri waxaana muddooyinkii ugu dambeeyay howlgallo ka waday laamaha ammaanka ee dowladda. Habeen hore ayaa howlgal kan la mid ah waxay ciidamada nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya ee NISA iyo kuwa booliska Soomaaliyeed ay ka sameeyeen xaafado ka tirsan gudaha degmada Wadajir ee gobolka Banaadir. Howlgalkaas waxaa lagu soo qabtay dad u badan dhalinyaro aan iraahdee kuwaasi oo qaarkood la sii daayay halka kuwa kalena laga shakiyay laguna xiray saldhigga degmada Wadajir. Dhaqdhaqaaqyada ay ciidamada ammaanka ee dowladda federaalka Soomaaliya ama dowladda Soomaaliya ay haatan ka wadaan caasimadda Muqdisho ayaa ku soo aadaya iyada oo haatan lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan waxaana dowladda Soomaaliya ay dejisay qorshayaal looga soo horjeedayo weerarada ka dhanka Al-Shabaab. Si kastaba ha ahaatee, Muqdisho ayaa waxaa maalmihii la soo dhaafay ay martigelisay weeraro toos ah, qaraxyo iyo dilal qorsheysan oo ay qaarkood sheegatay kooxda Al-Shabaab. Sugoyira Media ayaad naga daawanaysaa.